waxa laga yaabaa inay tahay xujada ugu yaabka badan iyo xiisaha badan ee la soo dhigay internetka, taasoo ballan qaadaysa inaad si cad u fahantay marka aad xaliso ama aad ku guulaysato. qofna ma garanayo cidda dejisa ama waxa abaalmarintu tahay dhammaadka ama marka aad guulaysato. Cicada 3301 ayaa soo dhejinaysa hal xiraale qarsoodi ah oo aad u adag muddo 3 sano isku xigta, waxa ayna ujeedkeedu tahay inay shaqaalaysiiso dadka ku xeel dheer cryptography-ga, sidoo kalena kala dhex baxdo bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa maxay Cicada 3301? hal xiraalaha internetka ee ugu horreeyay wuxuu bilaabmay January 5, 2012, wuxuuna socday ku dhawaad hal bil. wareegga koowaad, wareegga labaad ayaa si sax ah u bilaabmay hal sano kadib January 5, 2013, waxaana wareegga saddexaad la sameeyay 2014. sidoo kale waxaa soo korodhay sheegashada in la raadiyo shakhsiyaad aad u caqli badan oo fahma xaliyana hal xiraalahan. hal xiraalaha Cicada 3301 waxa uu ku challenge gareeyaa tartamayaasha inay helaan fariin qarsoodi ah oo ku dhex qarsoon sawirkan hortiina ka muuqda. Hello, waxaan raadinaynaa shakhsiyaad aad u garaad badan. waxaanu qorshaysanay tijaabo. waxaa jirta fariin ku qarsoon sawirkan hortaada ka muuqda. raadi waxa uu kugu hogaaminayaa waddadii aad nagu heli lahayd annaga. waxaan rajaynaynaa inaannu la kulanno kuwa yar ee ka soo gudba tijaabadan. nasiib wacan. sawirku waa midkan hortiina ka muuqda. kuwani ma ahan hal xiraalaha maalinlaha ah ee wakhtiga yar kugu qaata xalintooda. kuwani waa kuwo aad u adag, hal xiraale aad u qafilan si aad u ogaatid kakanaanta hal xiraalahan. hal xiraalo walba waxa uu ku sii hoos jiraa hal xiraalayaal badan, kuwaasoo u baahan in la xaliyo si loogu gudbo qaybta xigta ee xujada Cicada 3301. fariin walba waxay kugu hagaysaa hal xiraale. hal xiraalo walbana waxa uu ka howl badan yahay kuwii hore. waxaa laga yaabaa in waxa ugu horreeyay ee maskaxdaada ku soo dhaca ay tahay, miyaanay dhammaantood ahayn been abuur? dhammaantood miyaanay noqon karin keliya waxyaabaha internetka la soo geliyo oo la bombooniyo, taasoo ujeedkeedu tahay in dadka lagu madadaaliyo? taasi waa waxaan macquul ahayn. tijaabooyin kala duwan iyo caddaymo badan ayaa ku qasbay ka qaybgalayaasha inay u safraan meelo kala duwan si ay u soo caddeeyaan una helaan tilmaamaha dhammaystiraya tilmaamaha ay wataan. meelahaas waxaa ka mid ah goobo kala duwan oo Maraykanka ku yaala, sidoo kale Australia, Spain, Ruushka, Japan, Warsaw, Poland, Paris, Faransa iyo dhammaan goobaha kale ee kuu soo bandhigayo hal xiraalahan Cicada 3301. dhammaan caddaymahani waxay soo muuqdeen isku mar, taasoo isku jeedinaysa inuu mashruucani yahay mid aad isugu dubaridan. intaa waxaa dheer kakanaanta xujooyinka iyo noocyada kala duwan ee mediumka ah, kaasoo resource waxgal ah u noqonaya helidda maxsuulka. sidoo kale ururada kala duwan oo doonaya inay ku bixiyaan lacag badan ilaa dhammaadka. sidaa daraaddeed ma ahan xujadani mid fani ah. mediumka la sheegay waxaa ka mid ahaa telefoonka, original musiga, bootable Linux CD-ga, sawirada dijitaalka ah, calaamadaha waraaqadaha ku sawiran iyo bogagga bugaagta sirta qafilan ee aan weli la daabicin. ma isleedahay waxaa agaasimay ururo heer caalami ah sida CIA-da ama MI16ka ama ururo kale? dhab ahaantii waxay haystaan awood siinaysa inay sameeyaan waxaan oo kale, laakiin taasi sidoo kale waa waxaan macquul ahayn, iyadoo ururadani ay sameeyaan habab aan caadi ahayn oo lagu shaqaalaysiinayo dadka si ay ugala dhex baxaan bulshada garaadka iyo xildheerida u dhashay. had iyo jeer waxay soo bandhigaan hawshooda babliga, waxayna ku dhawaaqaan tartanka, waxayna ku dhawaaqaan waxa loogu talagalay. waa nidaam aad u kala duwan runtii. hal xiraalaha Cicada markii ugu horreysay 4 January 2012 waxaa la soo dhigay sawirkan baraha ay ka mid tahay Reddit, taasoo si bilaa dood ah qofka wax soo dhigay aan la ogaan karin. waxay ku saxiixnayd 3301. dad yar ayaa ka gudbay stage-kan si loo jabiyo koodhka ku qarsoon sawirka koowaad. waxaa la isticmaalay software-ka Stageography si uu u soo saaro fariinta ku lifaaqan xarfahan horteena ka muuqda. xaraf kastaana wuxuu u dhigmaa xaraf kale. kadib markii uu furfurmay koodhkii, sawirkii waxa uu horseeday website leh sawirka shimbiraha. waxa uuna shaaca ka qaaday buug ay ku qoran yihiin
koodh qarsoon oo ka kooban liis 2 lambar ah oo ay u dhaxayso 2 dhibcood. Kadib buuggu wuxuu ku hogaamiyey Reddit address ay ciwaanka bogga kore ugu qoran tahay nambaradii aan soo sheegay. Hawshu way sii adkaanaysay marba marka ka dambaysa. Kadib markii la eegay dhinacyo kala duwan, waxaa soo baxay inuu ka kooban yahay bosti ay ku dahaaran yihiin koodh kaasoo la fududeeyey iyadoo la isticmaalayay koodhkii buugga. Kadib markii laga shaqeeyey koodhka, waxaa loo horseeday 2 sawir oo kala duwan kuwaasoo sidoo kale ka koobnaa fariimo qarsoon. ugu dambeyntiina u horseeday inuu galo lambarka taleefanka Texas. wacista nambarka telefoonka ayaa keentay fariin cod ah. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final JPG image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a com to find the next step.